muuqaalkan aad arkaysaan waa macawsleyda beesha xawaadle oo uu sii kala haryaamaya sidoo kalena uu sii kala cararaya goobta dagaalka uu ka holcaya ee Aboorey iyo Sooman. wax yar ila daawo muuqaalkan. xabada sidaas u socoto ee sidii roobkii u socoto waxay ka dhacaysaa iyo Sooman iyo Aboorey oo dagaalkii ugu ba'naa buurahaasi gobolka Hiiraan ku yaala ee Aboorey iyo Sooman ayaa mar kale la isku farasaaraya ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya xogaga macawsleyda ee beesha xawaale ee ka dagaalamo gobolka bariga Hiiraan ayaa mar kale waxa ay dagaalo faraha lagu guftay jilbahana la isku aastay ay ka socdaan Aboorey iyo Sooman ee dhaca gobolka Hiiraan sidoo kalena ah dhul buuraley ah oo ururka Al-Shabaab ay fududaan weysay mar kale in si sahal ay ugu saaraan macawsleydan iyo ciidamadan dawladda ee isgarabsanaya. raggan aad arkayso ee si kala cararaya ma ahan inay u cararayaan goob cunno lagu qaybsanayo waxay u socdaan ayaa ah in ay shafka u dhigtaan xabada ka holceysa iyo Sooman iyo Aboorey. waa macawsleyda beeshan xawaadle bariga gobolka Hiiraan magaalada Moqokori ay ka soo tageen oo waxa ay u cararayaan ayaa ah in mar kale ay gurmad siiyaan ciidamada macawsleyda ee ka dagaalamaysa buuraha iyo Sooman iyo Aboorey ee halkaasi ururka Al-Shabaab isku farasaarayaan. muddooyinkii ugu dambeeyay Aboorey waxa ka dhacay dagaal faraha loogu guftay sidoo kalena ururka Al-Shabaab ayaa laga saari waa iyo Sooman ayaa iyadana sidaas oo kale ahayd ururka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin laga bixi kari waa goob walba oo ay jireen macawsleyda beesha xawaale way isaga yimaadeen sidii ay mar kale isaga saari lahaayeen ururka Al-Shabaab oo ay gacantooda ugu xoreyn lahaayeen Aboorey iyo Sooman. ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa garab siinaya hase ahaatee haatan dadkan cararaya kuma jiraan ciidamada dawladda ee waa gurmad macawsleyda beesha xawaale oo ciidamadii ugu badanaa ku sii daabulaysa gudaha iyo Sooman iyo sidoo kale Aboorey eeriyadeeda si mar kale ururka Al-Shabaab ay ugu difaacdaan dhulkaasina ay ugu saaraan. iyo Sooman iyo Aboorey waa dhul buuraley ah sidoo kalena waa wabijiimeed oo si sahal ma looga saari karo ururka Al-Shabaab hase ahaatee haddii aysan duqeymo helin waxa ay noqon doontaa goob lagu nagaaday ee ururka Al-Shabaab ku nagaadaan ama ragaadisay colaado iyo sidoo kale marti gelinayso dhimbilo holcaya hubka noocyadiisa kala duwan ee la isu adeegsanaya iyo rasaasta ka dhacaysa Aboorey waxa ay noqon doontaa mid sii joogto haddii aysan ciidamada macawsleyda helin wax gurmad ah oo dhinaca diyaaradaha. weli ciidanka diyaaradaha ama kor ciidamada ka duqeyn jira ururka Al-Shabaab weli kama aysan qayb qaadanin dawladda lama oga sababaha hase ahaatee weli ururka Al-Shabaab ayaa waxay isku dayayaan iyaga dhinacooda inay mar kale xajistaan Aboorey oo gabi ahaanba ururka Al-Shabaab ay ku nagaadaan Aboorey iyo Sooman oo ah dhul buuraley ah oo beeraley ah sidoo kalena ah dhul jiimeed aad u qurux badan. si kastaba ahaatee beesha xawaale muddooyinkii ugu dambeysay baaq cirka iyo dhulka diraysay dawladda iyo beesha caalamka iyo sidoo kale dadkeeda ehelkeedaba oo qaylo dirsanaysay in mar kale ay Sooman ururka Al-Shabaab ka reebaan ayaa mar kale waxa ay noqdeen goob ay weli ururka Al-Shabaab ku sugan yihiin oo weli maysan suuro gelin in ay gacantooda weli ugu saaraan ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa waxa la sheegay in Aboorey ka qoteen dhulka hoostiisa godad oo waaweyn halkaasina ay ku dhuumaaleysanayaan iyagoo halkaasi ka dagaalamaya ayna adkaatay in mar kale ay xabada ka dhacaysa Aboorey ay suuragal noqoto in ururka Al-Shabaab laga saaro deegaanadaasi dhaca iyo Sooman iyo Aboorey ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. halkaasina weli ururka Al-Shabaab ayaa gacanta ku haya Aboorey markii hore dawladda federaalka Soomaaliya iyo macawsleyda beesha xawaade khilaaf soo kala dhaxgalay ayay iskood ugu bixeen Aboorey si xasilan ay ula wareegeen ururka Al-Shabaab waxay noqotay in mar dambe sahal gacantooda ay ugu bixin oo Aboorey waxay noqotay qoobta kaliya ee lagu dagaalamay sidoo kalena shafka la isku aastay in mar kale ay dawladda federaalka Soomaaliya iyo macawsleyda oo isku dhinaca iyo sidoo kale ay ururka Al-Shabaab ay mar kale ka saaraan Aboorey guud ahaanba goobaha yar ay uga harsan yihiin gobolkaasi Hiiraan waxa ka socda waa holac dab dhinaca kale waxa wajahayaa abaaro iyo sidoo kale colaado soo noqday hase ahaatee sanadii 2022 ay beesha xawaale waxa ay dagaal xoogan oo hogaaminaya taliyaha macawsleyda haatan Cali Jeyti Cismaan waxa ay la galeen ururka Al-Shabaab halkaas oo ay ugu dambeyn ururka Al-Shabaab deegaano badan ugu saareen oo dhaca gobolkaasi Hiiraan sida iyo Sooman iyo Aboorey mar kale ururka Al-Shabaab dib ay u qabsadeen teedaan iyo sidoo kale mabaax oo haatan ay ku sugan yihiin ciidamadaasi macawsleyda hase ahaatee mar kale hayay rogaal celin waxay ururka Al-Shabaab sameeyeen kadib markii ay ka faa'iideysteen qabsiga ka dhacay gobolka
oo wajahayay muddooyinkii ugu dambeeyayba hoggaanka iskhilaaf iyo hoggaan xumo in mar kale ururka al-shabaab ay ku dhiiradaan inay teedaan iyo Sooman iyo Abooreyba ay mar kale gacanta ku dhigaan ayna ku sugnaadaan dagaalo ba'an ay ku wajahdo dowladda federaalka Soomaaliya haatan ayaa mar kale waxa ay socdaan guluf colaadeed oo ka dhan ah ururka al-shabaab taas oo looga saarayo deegaanadaasi bariga gobolka Hiiraan taas oo ay mar kale doonayaan in gacantooda ay ku soo celiyaan iyagoo garabsanaya dowladda federaalka Soomaaliya si kastaba haatee dagaal xoogan ayaa dalka ka holcaya dowladda ayaa qaybka madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hogaaminayay isagoo ay dad badan ku faleeyaan dagaalkani inuu ku guuleystay wajiga koobaad maadaama ay ururka al-shabaab goobo badan wali ku sugan yihiin kuwa hor lehna ay qabsadeen sidoo kalena ay xooga soo saareen gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe walina aan laga adkaan ururka al-shabaab sida ay muujinayaan ifafaalaha qaar iyo goobaha ay wali ururka al-shabaab qabsanayaan iyo goobaha ay ku nagaadeenba oo wali laga saari way marka loo eego hasaate dowladda ayaa mar kale waxa isku dayaysaa inay ururka al-shabaab ka xoreyso deegaano badan oo dhaco gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe Shabeellada Hoose iyo guud ahaanba taas oo ay mar kale doonaysaa in 10 sano deegaano ururka al-shabaab gacantooda ku jiray ay mar kale gacanta dowladda ku soo celiso daawade aad u maasantahay hadii aad inta nala soo gaartay fadlan muuqaalkan like saar si uu ku soo gaaro muuqaalada xiga iyo sidoo kale si aad ula socotid dhaqdhaqaaqa military ee ka socda gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan oo ah goobo colaadeed oo mar kale ay dowladda federaalka Soomaaliya ururka al-shabaab isku farasaarayaan dagaalo xoogana ay ka socdaan xogahaasi iyo kuwa kale oo muhiim ah ayaad kala socon doontaan channelkayga fadlan subscribe hadda ku ahayn waxaan ka codsanaynaa subscribe ii saartid muuqaalka like saar si muuqaalada xiga ku soo gaaraan aad iyo aad u mahadsantahay daawade